maanta annagoo jiilkii dhalinyarada ahaa waxaan nasiib u yeelanay inaan mar labaad dalkeena ku dhisano isxilqaan oo noogu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa tiimka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ka jawaabay baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda wadaninimadu ma ahan Soomaalinimo wadanigu waxa ah ninka dalka u dhimanayo daafacayo dhisayo xumaantiisa iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisana ay dhibayso fariinta marka saaka aan wada waxa waaye shaqaalaha madaxtooyadu waa shaqaale mudan ku dayasho laakiin runtii waxa waaye shaqaalaha Soomaaliyeed boqolkiiba 99 waxaan dhihi karnaa waa shaqaale u heelan hawsha qaranka inay gutaan laakiin waxaan la iloobi karinin oo ku dayasho mudan oo annaga aan daawanaa maalinta ay shaqaynayaan oo aan si wanaagsan shaqadooda aan maaragtay u fiirsanaa waa shaqaalaha madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed waxaan leenahay halkiina ka sii wada shaqada isxilqaan ma dhawa waxa la rabaa wadanka oo dhan in lagu dhiso sida uu yahay fiishinka dawladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Soomaaliyeed waxa waaye ujeedadu ma aha maktabad iyo madxaf kaliya la dhisay sida saakaba loo sheegay waxa waaye dalka oo dhan in la dhiso